السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الصائمين والصائمات، حفظكم الله وبارك الله لكم وعليكم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا الصيام والأعمال الصالحة كلها. walaalayaal ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala na soo gaarsiiyey bil barakaysan oo ramadaan ah, isla markaasna ilaahay uu noo ogolaaday uuna karsiiyey in aanu soomno xoogaa cibaadahana aan la nimaado. marka cibaadadaasi runtii haba iska yaraatee ilaahay abaalkeeda ayuuna siin doonaa insha allahu tacaala. ajir fara badan ayaanu ka sugaynaa in ilaahay acmaasha saalixaadka ah haba yaraatee ilaahay inuu noo barakay doono insha allahu tacaala. waaye galabta waxaanu ka hadlaynaa haddii alla yiraahdo dersigii hore qeybtiisa labaad weeye. haddii alla yiraahdo culimmada oo la ixtiraamo, laga heebeysto, la xushmeeyo, la maqlo duruusta ay akrinayaan, ramadaan ha ahaato ama kheyru ramadaan, waxay kamid noqonaysaa arrinkaasi istiqraarka iyo xasiloonida wadanka ayay qeyb ka qaadanaysaa, iyo xasiloonida ummadda iyo horumarka ummadda ayay qeyb ka qaadanaysaa. wax sahlan ma aha. culimmadu waxa weeye waa lafdhabarka ummadda islaamka weeye. haddii culimo la-aani ay ku dhacdo ummadda islaamka, waxa waaye waa ummad baaba-da waaye, sidii aan dersigii horeba aan kusoo sheegnay. marka kana waxaanu kaga hadlaynaa arrintaas un qeyb kamid ayaan kaga hadlaynaa. gaar ahaan casharkan waxaa aada iyo aada uga faa-ideysanaya runtii, iyadoo dhammaan qof waliba oo dhegeysta oo yara xoogaa waqti siiya, oo 40 daqiiqo inuu socdoon ayaan umaleynaa, ilaa 45 daqiiqo haddii alla yiraahdo inuu ka faa-idi doonaa. laakiin aada iyo aad waxaa uga faa-idaya tulaabul cilmiga, dadka cilmiga baranaya, dhalinyarada cilmiga baranaysa, rag iyo dumar ha ahaadaano, aada iyo aad bay uga faa-idayaan insha allahu tacaala. wuxuu kutusayaa dersigu, wuxuu kutusayaa ama ka hadlayaa adabka ama aadaabta lala doonayo in lala qaabilo culimada iyo ixtiraamka ay naga mudan yihiin haddii aan nahay dadka waxbaranaya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan. leannahu hadda ramadaankii baa la joogaa, culimadii masaajidii ayay ka muxaadareynayaan, ka wacdinayaan, youtube-kii baad kala xiriireysaa, lifebook baad uga daawanaysaa, muxuu ahaa facebookii, masaajidii joogaan, dee xaafadiiba joogaan, masaa-ishii baa la weydiinayaa. marka culimmadu waxay mudan yihiin ixtiraam gooni ah ayay mudan yihiin. marka dersigaas ayaan doonayaa inaan ka hadlo. wabaaraka allahu fiikum insha allahu tacaala. waaye tawqiiru alculamaa walhaybatu minhum, riyaad saalixiinka kitaabka la yiraahdo baab dhan ayuu imaamu nawowi ayuu u caqiday arrinkaas. kitaabkeeni hore oo ahaa muxuu ahaa xurmat ahlilcilmina aada iyo aad ayaaba arrintaas loogu lafaguray oo loogu faahfaahiyey oo loogu caddeeyey. marka haddii alla yiraahdo waxyar waxaanu ka arki doonaa, haddii alla yiraahdo dadkii hore salafu saalix iyo ummadihii hore oo taariikhdooda aan hayno, sida ay maaragtay isu qadarin jireen ayagii, iyo sida loo qadarin jiray, sida isu qadarin jireen iyo sida loo qadarin jiray. waxaa kamid a sheekha la yiraahdo daawuus ibnu kiisaan, wuxuu yidhi ina min asunnati an tuwaqara alcaalimu, sunnada waxaa kamid ah in qofka caalimkaa la weyneeyo, in la weyneeyo, in la ixtiraamo, la weyneeyo. taas ayaa kamid a. sidoo kaleeto waxaanu ognahay ibnu cabaas inuu ahaa ma arkaysaa saxaabi jaliil ah, isla markaasna wuxuu aada iyo aada u ixtiraami jiray ubay ibnu kacab ayuu aada iyo aada u ixtiraami jiray, aada iyo aada u ixtiraami jiray ubay ibnu kacab. ibnu cabaas wuxuu qaban jiraa la yidhi ubay ibnu kacab ayuu wuxuu
faraska ayuu u qaban jiraa layidhi. faraska markuu koreysanayo uu rabo inuu fuulo ayuu u qaban jiraa layidhi, u qaban jira, macnaha xagga khidmada iyo adeega ayaa laga hadlaya. markaasuu wuxuu yihi ubay ibnu kacab wuxuu yihi anta ibnu cami rasuulillaah, waxaa tahay nabiga ina adeerkiis ayaa tahay, aniga miyaad faraska ii qabanaysaa ayuu yihi. markaas wuxuu yihi ibnu cabaas wuxuu yihi, ma arkaysaa, ama ubay ibnu kacab wuxuu yihi yanbagii lilxabri an yucadama wayusharaf, qofka caalimka ah waxaa wanaagsan in la weyneeyo oo la sharfo ayaa wanaagsan ayuu yihi. marka ibnu cabaas iyo ubay ibnu kacab laba saxaabi ayay ahaayeen, marka sidaas ayay isu ixtiraamayeen, ixtiraam weyn ayaa ka dhexeeyey. saciid ibnu lmusayib wuxuu ahaa asiguna sheekh caalim ah oo salafu saalix ka mid ah. masjidka markuu soo galo dadka ayuu xadiidka bari jiray. masaajidka markuu soo galo dersi ayuu u fariisi jiray. intuusan dersiga u fariisan ka hor, masaajidka markuu soo galo taxiyatulmasjid ayuu dukanaya. dabcan markuu fariisto ayaa waxaa u imaan jiray caruurtii ay dhaleen asxaabta saciid ibn lmusayib, caruurta ay dhaleen asxaabta ayaa u imaan jireen. marka qof ku dhiiran karay ma jirin inuu wax weydiiyo oo su-aal uu ku bilaabo. qof kasta marka wuu xushmayn jiray ilaa asiga uu wax ka bilaabo, dersiga uu ka bilaabo, oo markaa asiga fasax uu dhiibo, ogolaasho uu dhiibo. culamada waxay ahaayeen sida madaxda hadda maaragtay loo ixtiraamayo kaleeto, oo qofka markaad qof madaxa rabto inaad qaabishid, madaxweyne ha ahaado, ra-iisul wasaare ha ahaado qof kaleo ama madaxa, markaad doonaysid inaad qaabishid waa inaad soo martid brotocolka waa inaad soo martid, habmaamuuska qofkaas lagu maamuusayo waa inaad soo martid. marka qof aad isaga gelaysid ama aad maaragtay toos isaga tegaysid, dalaq isaga dhehaysid ma jiro. marka culimaduna sidaas oo kale ay ahaayeen. culimada waxay ahaayeen dadka ugu muhiimsan ama dadka ugu mudan in la ixtiraamo ay ahaayeen. marka waxay leeyihiin dadkii la noolaa saciid ibn lmusayib, qof ku dhiiran kara ma jirin oo inuu wax weydiiyo. qofkaasi waa inuu idan soo qaato oo soo weydiiyo, ma arkaysaa, sida madaxweyneho kaleeto ama qof amiir oo kaleeto ayaa maaragtay loo ixtiraami jiray, ayay leeyihiin dadkii maaragtay la kulmay saciid ibn lmusayib. sheekha kaleo la yihahdo ama maaragtay imaam kale la yihahdo alacmash la yihahdo wuxuu yihi waxaanu ka heybeysan jirnay ibraahim annakhaci sida amiirka looga heybeysto kaleeto. kunaa nahaabu ibraahim annakhaci kamaa yuhaabu alamiir, sida amiirka looga heybeysto kaleeto ayaanu heybeysan jirnay. waa kaasa. marka waxaa gabay ahaan loo soo wariyaa sheekha la yidhaha alasdi inuu yihi waqara mashaayikha ahli lcilmi qaadibatan xataa tuwaqara in afdaa bika alkibaru wakhdim akaabirahum xataa tanaala bihi mithlan bimithlin idaa maa shaarafa alcumru. waqir weyney ayuu yihi oo tacdiimi weyney mashaayikha ahli lcilmi, dadka ahlulcilmiga ah mashaa'ikhdooda weyney, qaadibatan dhammaan weyney. xataa tuwaqara, adigana intii lagaa weynayo, in afdaa bika alkibaru, haddii da-du ay ku gaarsiiso halkaas, haddii da-daadu ay ku gaarsiiso adigana, maadaama hadda aad tahay qof dhalinyaro ah ee arday ah oo waxbaranaya aad tahay, ma arkaysaa, weyney mashaa'ikhda, iska weyney dhammaantoodba weyney, una khidmay kooda weyna ama sheekhaadoo kaleeto u khidmay, u adeeg. inkastoo arrintan hadda maaragtay dadka hadda dhalinyarada zamankan jooga aysan arrintaas aysan ku qanacsaneyn, boqolkiiba maaragtay 80 aan ihahdo arrintaas hadda kuma qanacsan, dad yar ayaa ku qanacsan in culimmada loo khidmeeyo, leannahu fawdo iyo dhibaato iyo mushkilad ayaa maaragtay ayay la kulmeen dhalinyaradu. marka ma garanayaan in hadda la yaraa lagu baraarujiye mooye. wakhdim akaabirahum xataa tanaala bihi, intaad ka gaartid mithlan bimithlin, ayagoo kale intaad ka gaartid, idaa maa sharafa alcumru, cumrigaada haddii uu ku dhaweeyo. marka qof kasta wuu jecelyahay ixtiraamka,
laakiin adiga ixtiraamka adiga muuji, ixtiraamka muuji, ma arkaysaa. waalidkaada adiga ixtiraam haddaad doonaysid adiga in lagu ixtiraamo, ma arkaysaa. culimada ixtiraam haddaad doonaysid adiga in lagu ixtiraamo markaad waxbaratid kadib. waxay ahaayeen dadkii wax ka baranayay imaamu malik qarnigii uu noolaa ama zamankii uu noolaa imaamu malik. albaabkiisa ayay imaanayaan. culimada waa loogu tegi jiray, guryahooda ayaa loogu tegi jiray, masaajid kaliya laguma sugi jirin, si aad hal xadiid kaliya uga maqashid, si hal xadiid aad uga maqashid. marka imaamu malik gurigiisa ayay tegi jireen ardaydiisu. marka sida wariyaashu hadda ay ugu xoomaan meeshii maaragtay war uu ka jiro kaleeto ay u xoomi jireen, ma arkaysaa, si ay war uga helaan. hadda wariyaasha waad arkaysaa markii la yihahdo qof baa wuxuu qabanayaa shir saxaafadeed, dhammaan waa la wada aadayaa. waxaad arkaysaa boqolaal iyo maaragtay boqolaal iyo qaarna lasoo celinaya, qaarna loo fasaxayo, ad arkaysaa. marka imaamu malik oo kaleeto markii ay ka doonayaan inay wax ka bartaan, gurigiisa ayay u aadayeen, masaajid keliya ku sugumeen. marka halkaa ayay maarata isku ciriiriyeen. marka waana laga heybeysan jiray. marka guriga loo tago oo guriga loogu galo, waxay ahaayeen ma arkaysaa, uu markaas soo dhaweeyo, uu qaabilo, uu majlis uu siiyo waasac ah oo ay fariistaan, ma arkaysaa. halkaas dhammaantooda way wada gundhinayeen, madaxa ayay saas ugu gundhinayeen, ma arkaysaa. qof marka madaxiisa kor u qaaday ma jirin intii imaamu malik uu dersiga uu jeedinayo ama casharka uu akrinayo ama xadiidka uu warinayo. marka axaadiidta markuu warinayo kulli way wada qoranayeen, liannahu axaadiidta waagii hore, ma arkaysaa, qof waliba wuxuu haysta ayuu ku qoranayay. markii imaamu malik ama imaamu albukhaari, imaamu muslim, ay imaam oo maaragtay salafu saalix kamid a, markii uu dersi akrinayo, kuwa ka dhegeysanaya way ka qoranayeen. qofna wuu xifdinayay, qofna wuu ka qoranayay. marka waxaa laga soo guuriyey imaamka la yihahdo ibn lkhayaad, asigoo amaanaya oo madxinaya imaam kaleeto malik ibnu anas, imaamu malik ayaa loola jeedaay. wuxuu yihi yadacu ljawaaba falaa yuraajacu haybatan, wsaa'iluuna nawaakisu ladqaani, nuuru lwiqaari wacizu suldaani اtuqa, fahuwa almahiibu walaysa da suldaani. saas ayuu yihi. yadacu ljawaaba, marka su-aal baa la weydiinaya, su-aal ayaa la weydiinaya imaamu malik. marka su-aasha la weydiiyo kadib lagu celcelin maayo, falaa yuraajacu, lagu celcelin maayo haybatan, iyadoo laga heybeysanayo. wasaa'iluuna nawaakisu ladqaani, kuwa wax weydiinayana saas bay u gorosayaan xogaayo, marka madaxa ayay hoos u dhigayaan. marka sheikha waxaa saaran ayaa la yihi nuurulwiqaari, weynaanta nuurkeeda ayaa saaran, wacizu suldaani tuqa, alla ka cabsiga suldaankeeda ayaa saaran. marka qofkii ilaahay ka baqa, dadkuna way ka baqaan. qofkii ilaahay ka heybeysta, dadkuna way ka heybeysanayaan. waa sidaas. wasaa'iluuna, ma arkaysaa, nawaakisu ladqaani, nuuru lwiqaari wacizu suldaani tuqa, fahuwa almahiibu walaysa da suldaani. waa mid laga heybeysto. mahiib waa mahiib, oo jaanibkiisa, dhinaciisa iyo majliskiisa laga heybeysto. walaysa da suldaanin, suldaanna ma uusan aha, qof madaxweyne ah ama madaxa maaha, amiir ma aha, ma arkaysaa. marka sidaas ayay ahaayeen dadkii hore, culimadii hore sidaas ayay ahaayeen. culimadii hore sidaas qeyb kamid a saas ayaa laga soo wariyey. marka qof waliba waa inuu garto dadka akaabirta ah xuquuqda ay leeyihiin. culimada waa in la weyneeyo, waa in la xushmeeyo. kaasa diinta islaamku waxay siisay xuquuq, ayay cid walba siisay. xuquuqda marka waad maqlaysaa, xuquuqda dumarka, xuquuqda maaragtaysa ay leeyihiin culimada, xuquuqda caruurta waad maqlaysaa, xuquuqda ay leeyihiin saxafiyiinta, waxaas waad maqlaysaa. laakiin maanta maqli maysid xuquuqda ay leeyihiin dadka culimada ay leeyihiin, maqli maysid. marka xuquuq gooniya ayay leeyihiin, ma arkaysaa. waxaa la yidhaahdaa, ma arkaysaa, nabigu waa ki yiri sala allahu alayh wasalam, laysa mina man lam yujili kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu. ma arkaysaa,
nagama mid ahaa qofkayna weyn aan weyneynin, qofka weyn qofkaan weyneynin naga mid maaha. isla markaasna aan u naxariisan kan yar, caruurta yarna waa in loo naxariisto, caalimkana xaqiisa waa in la garto. atharkaas waxaa warinaya ma arkaysaa imaamu axmed ayaa warinaya. ma arkaysaa bakr ibn cabdillaahi almizani wuxuu yidhi idaa ra-ayta haddaad aragtid man huwa akbaru minka, qofkaa weyn haddaad aragto, faqul hada sabaqanii biliimaani walislaam, waxaad tirahdaa qofkaani iimaanka islaamka ayuu iiga hormaray iyo walcamal saalix fahuwa khayru minii, waa iga khayr badanyahan, sidaa ku dheh. haddii aad aragtid uu yihi man huwa asqaru minka, qof kaa yar haddaad aragtidna, faqul sabaqtuhu ila dunuubi, dunuubta ayaan uga hormara dheh, iyo walmacaasi fahuwa khayru minii, labada marba asiga ayaa iga khayr badan dheh. ma arkaysaa waaye marka ereygan marka maxaa loola jeedaa? qofkaa weyn haddaad aragtid, kaa da- weyn haddaad aragtid, sida ugu wanaagsan oo sunnada ah waxaa weeye inaad tirahdo qofkan iimaanka islaamka ayuu iiga hormara inaad tirahdid, iyo camalka saalixa ah waa iga khayr badan yahay, waa iga wanaagsan yahay, ilahay xaggiisa waa iga wanaagsan yahay. haddii aad aragtid qof kaa yar haddaad aragtid, ama kaa cilmi yar ayaa loola jeedaa, ama kaa da- yar haddaad aragtid, labadaba ma arkaysaa, waxaad tirahdaa sida ugu wanaagsan waxaa waye inaad tirahdid aniga ayaa uga hormaray dembiga iyo macaasida, waa iga khayr badan yahay, waa iga khayr badan yahay. kii weynaana waa iga khayr badan yahay, ma arkaysaa, oo khayrka uu iga hormaray. kan iga yarna waa iga khayr badan yahay, aniga ayaa sharta iyo macaasida iyo dunuubta iga hormaray inaad tirahdid ayaa wanaagsan. arrinkaasna waxaa laga soo wariyey ma arkaysa bakr ibn cabdillaahi almuzani sifatu safwa ayaana qoraya. xadiidka kan oo horay aan yara wax uga tilmaanay wuxuu leeyahay ina min ijlaal illahi tacaala ikraamu di shaybati lmuslim wa xaamili lqur'aani gayri lgaali fiihi wala ljaafi canhu wa ikraami di suldaani lmuqsidi. waxaa soo saaray alimaamu bukhaari, abi muusa alashcari ayuuna ka warinaya. ilahay in la weyneeyo waxaa kamid a, ilahay inaan la weyneeyo waxaa kamid a qofka da-da ah in la weyneeyo oo la karaameeyo oo la maamuuso, iyo qofka xaamilul qur-aanka ah oo qur-aanka si fiican u aqrinaya oo aan ku xadgudbaynin qur-aanka, iyo midkii ka fogaada aan ahayn, mid qur-aanka ku xadgudbaya aan ahayn, mid ka fogaadana aan ahayn, ee qur-aanka sidii uu ahaa ugu toosan. ma arkaysaa iyo in la karaameeyo qofka suldaanka ah oo madaxweynaha ah ama amiirka ah ee caadilnimo sameynaya, qofkaas asigana in la karaameeyo diinta islaamka ayaa qabta. ibnu xibbaan waxaa laga soo wariyey ama uu yiri, ibnu xibbaan waxaa laga soo wariyey inuu yiri ma arkaysaa inuu yiri ibnu cabaas asoo ka warinaya albarakatu maca akaabirikum, barakadu waxay la jirtaa dadka waaweyn ayay la jirtaa daa'iman. albarakatu maca akaabirikum, barakadu dadka waaweyn ay la jirtaa, culimada mashaa'ikhda ayaa barakadu ay la jirtaa. ma arkaysa nabigu waa ki yiri sala allahu calayhi wasalama, xadiid saxiixa ku yiri ya-umu lqowma aqra'uhum likitaab illah, qowmka waxaa imaam u naqanaya oo salaadii ka bixinaya markii meel la isugu yimaado qofka qur-aanka ugu aqrin badan oo qur-aanka ugu aqoon og, iyo wa aqdamuhum qira'a fain kaanuu fi lqira'ati sawaan falya-umuhum hijratan, kan ugu hijro horeeyey ayaa imaam u noqonaya. fain kaanuu fi lhijrati sawaan falya-umuhum akbaruhum sinna, haddii hijrada ay isku mid ka yihiin oo mar isla soo hijroodeen xagga hijradan iska mid ay kaga yihiin, waxaa u noqonaya imaam u noqonaya kan ugu da-weyn. marka da-weynida iyo qofka weyn ma arkaysaa xagga gabowga iyo cimriga ugu weyn oo culimadana ah oo aqoontana leh oo imaamna noqon kara, qofkaas ayaa la doonayaa in maaragtay loo dhiibto. haddii sidaas aan la yeelin waxay noqonaysaa dee mushkilad baa ka imaanaysa, qofkii ma garanayo ma arkaysaa meel uu waxgeeyo ama salaadii qaabka uu dukanayay maba garanayo. ziyaad ibnu cubaydillaahi waxaa laga wariyey inuu yiri ayuha nnaas, nin madaxa ayuu ahaa, marka dadkiisii ayuu la hadlayaa oo madaxda u ahaa. wuxuu yiri xalayto waxaan ka murgay uu yiri 3 shay ayaan xalay ka murgay ayuu yiri oo aan doonaya maanta in idin sheego. waxa waaye 1 icdaamu di washaraf, dadka sharafta u saaxiibka in la weyneeyo. 2 waxa waaye yiri ijlaalu dhawi lcilmi, cilmiga kuwa u saaxiibka ayagana in la weyneeyo. wa tawqiiru dhawi lasnaani, kuwa da-da ayagana in la weyneeyo.
ma arkaysaa. qofka hadduu sharaf hadduu leeyahay oo ahlu sharaf uu yahay in la sharfo, haddii uu yahay dawilcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkaa culimada haddii uu yahayna in la weyneeyo, haddii uu qofkaasi uu da- yahana in la weyneeyo. diinta islaamka ayaa qabta. laakiin zamankan waxaa jirta ma arkaysaa dadkii ahlu cilmiga ahaa in maaragtay yara xoogaa ay saaxadii ay ka maqan yihiin, ama maaragtay yara la riixay oo dad kale ay soo baxeen, dad kale oo ayagu aqoontii diiniga aan si saxa aan u lahayn inay soo baxeen, ma arkaysaa. marka waxaa sax noqota la yidhi 3 beyt oo caan ah oo mashhuur ah in lasoo daliishado. 3 beyt waa 3 beyt oo aada iyo aada u cajiib leh, ma arkaysaa. waxaa soo daliilinaya ama yiri alqaadi cabdulwahaab almaliki, qaadiga la yihahdo ayaa yiri. marka waxuu yihi mataa yasilu alcitaashu ila irtiwaa'in ida stuqat albixaaru min alrakaaya waman yuthni alasaagira can muraadin waqad jalasa alakaabiru fi الzawaaya waina tarafuca alwudacaa'i yowma cala alrufacaa'i min ixdى الrazaaya ida stawat alasaafilu waalacaali faqad taabat munaadamat lmanaaya. ayuu yiri cajiib. wuxuu yihi mataa yasilu alcidaashu ila irtiwaa'in, goormay gaarayaan dadkii oomanaa inay biyo cabaan oo biyo ay ka wabxaan oo ay noqdaan kuwa aada iyo aada ma arkaysaa oonka uga baxa. ida stuqat ilbixaaru min alrakaaya, haddii badihii laga waraabiyo ceelashii yaryaraa. bad miyaad waraabin kartaa biyo beeshay? miyaad ka waraabin kartaa ceelal yaryar? miyaad ka waraabin kartaa? waa may. marka oon baa jiri doona ayuu yiri, oon ayaa jiri doona. marka mataa yasilu alcidaashu ila irtiwaa'in waxaa ula jeedaa markaas dadkii juhalada ahaa oo jahliga uu dishay, goormay ayay cilmi heli doonaan? haddii dadkii dhalinyarada ahaa oo ayagu aqoonta aan u lahayn, haddii ayagu ay iftoonayaan, saas camal ayay ula jeedaa, saas ayay ula jeedaa. waman yuthni alasaagira can muraadin, alasaagir waxaa loola jeedaa dadka aan macnaha cilmigooda uusan badnayn ayaa loola jeeda alasaagir. yaa ka celinaya oo ka celinaya waman yuthni alasaagira can muraadin, yaa ka celinaya wixii ay doonayeen dadkii liitay oo asaagirta ahaa ama cilmigooda yaraa. waqad jalasa alakaabiru fi zawaaya, dadkii akaabirta ahaa oo waaweynaa ay fariisteen zawaaya almasaajid ayay fariisteen. zawaaya almasaajid ama zawaaya ama waa la fogeeyey, macnaha ayay iska fariisteen. waina tarafuca alwudacaa'i yowman cala alrufacaa'i, waina tarafuca alwudacaa'i yowman, markii ay kor isu qaadaan oo yiri kuwii liitay maalin maalmaha kamida kuwii sarreeyey ay ayagu iska saramariyaan, min ixda razaaya, masaa'ibta kuwooda ugu waaweyn ay kamid tahay ayuu yiri. marka wuxuu kusoo gebagabeeyey ida stawat alasaafilu waalacaali, kuwii hooseeyey iyo kuwii sare markii ay sinmaan oo yiri ay isku mid ay noqdaan, faqad taabat munaadamatu lmanaaya, in geeri loo wacdo ayaa markaas ayaa wanaagsanaatay. in macnaha adduunkan in laga tagaba macnaha qofku iska jeclaysto oo iska dhinto inuu jeclaysto. markaas alqaadi cabdulwahaab almaliki raximah llahu tacaala sidaas ayuu yiri. waxayna ku qoran tahay kitaabka la yihahdo xurmat ahli lcilm. marka ya waa gabay aada u wanaagsan waaye runtii, aada iyo aad in maantay si fiican loo dareemana ay wanaagsan tahay. waxaa kaloo la yihahdaa ina alumuura ida alaxdaathu dabaratha duna shuyuukhi turaa fi siyariha alkhalala. ina alumuura, umuurta oo diinta ku saabsan iyo cilmiga iyo aqoonta ku saabsan, ida alaxdaathu dabaratha, kuwa liitay haddii ay maamulaan, kuwa aqoonta aan lahayn, duuna shuyuukhi culumadii ka sokow, turaa waa la arkayaa fii siyariha ama fii sayriha socodkeeda alkhalala, khalal ayaa soo dhexgelaya. marka waxaa la doonayaa dadka culimmada in la xusmeeyo oo laga dambeeyo ayaa la doonayaa. marka adiga aada soo gaartid inaad culimmadii booskoodii aada gaartidna, markaas haddii ilaahay uu subxaanah watacaala kuu fasaxo oo ku ogolaado inaad adiguna aada gashid booskoodii aada gashido, oo adigu markaa adigana aada cilmiga adigana qeybtaadi adigana aad ka jawaabtid, sidaas ayaa wanaagsan. marka
culimmadu daa'iman way is ixtiraami jireen, waxay aaminsanaayeen alcilmu raximun bayna ahlihi, cilmigu inuu yahay xiriirka ka dhexeeya culimmada. cilmiga bis culimmadu marka inay saaxiiba noqdaan oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar iyo ardadii kulli inay dhammaan ay saaxiiba noqdaan ayaa wanaagsan, oo diintii saaxiib lagu noqdo iyo cilmigii iyo aqoontii saaxiib lagu noqdo iyo alla kacabsigii in saaxiib lagu noqdo ayaa wanaagsan. sida qaraabaduba ay waajib u tahay inay maaragtay ay raximkii iyo qaraabanimadii dhexdooda yilay ay u kobciyaan oo u xiriiriyaan. ya taas waxaa ka dhexeeya dhalasho, wada dhalasho ayaa ka dhexeysa dadka raximka ah oo qaraabada ah. raxim baa ka dhexeeya, qaraabanima ka dhexeysa in laisku xiriiriyo ay waajib tahay. culimmadana waajib waxaa sidaas oo kaleeto ah inay iyaguna isku xiriiriyaan cilmiga u dhexeeya, oo cilmiga dadka ay barayaan ayagu. sidaas ayaa wanaagsan. imaamu nawowi waa sheekh caalim ah oo la yaqaano, ma arkeysa, oo kutub fara badan leh. kitaabkiisa la yihahdo tahdiib alasmaa walluqaat wuxuu ugu tarjumay culimo ayuu ugu tarjumay. marka waxaa kamid ahaa culimmadii uu magacyadooda ugu tarjumaya, macnaha tarjumaada waxaa loo jeedaa macnaha in sheekh la yihahdo sheekhani waa hebel 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 oo loo abtiriyo. marka wuxuu u abtirinayay abulcabaas ibnu surayj sheekha la yihahdo ayuu abtirinayay. marka asigoo ku ixtiraamaya sheekhaas marka uu abtirinaya wuxuu yihi, kitaabkiisana uu qoray, wuxuu yihi huwa axadu ajdaadina fi silsilati lfiqhi ayuu yihi, waa awowayaashii diintana soo gaarsiiyey ayuu yihi fi silsilati lfiqhi. fiqhiga marka culimada marka cilmi ahaan marka anaga aan ka sheekeynayna ayuu leeyay imaamu nawowi, cilmiga waxaa na soo gaarsiiyey sheekhaas baa na soo gaarsiiyey, culimo uu kamid yahay. marka waa awowyadii. marka adiga awowayaasha markaad ku abtirsanaysid hebel 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 marka aada leedahay waa sax taasi xagga abtirsiimada, xagga nasabka. laakiin diintu waxay leedahay nasab ayay leedahay lagu abtirsanayo. aniga waxay baray sheekh hebel tusaale ahaan, waxaa wax sii baray sheekh hebel sheekh hebel. marka sheikha ugu dambeeya waa awowga oo kaleeto tusaale ahaan, ma arkeysa, tusaale ahaan waa awowga wey. marka sheekadaasu aad bay u dheer tahay. wuxuu yihi sheekha la yihahdo oo kaleeto yaxya ibnu jacfar wuxuu yihi wuxuu ku qarni ahaa moxamed ibnu ismaaciil albukhaari, imaam albukhaari ayuu ku qarni ahaa. wuxuu yihi haddii maanta aan awoodou yihi inaan cumriga u kordhiyo imaamu albukhaari oo cumrigayga aan wax ka siiyo waan siin lahaa yihi, waan u kordhin laha. macnaha cumrigayga haddaan wax uga qaadi lahaa, ma arkeysa, oo halkoo sano 2 sano aan wax ugu biirin lahaa, waa ku biirin lahaa ayuu yihi, waa ku kordhin lahaa yihi. marka wuxuu yihi fa ina mowtii mowtu rajulin waaxidin uu yihi. marka wuxuu jecel yahay imaamu albukhaari inuu usii noolaado, ayuu jeclaa inuu sii noolaado, uusan geeriyoon ayuu jeclaa. asiguna ma arkeysa hortiis uu geeriyoodo. marka wuxuu yihi fa ina mowtii mowtu rajulin waaxidin ayuu yihi, aniga geerideedu waa geeri hal qof uu iska geeriyooday. laakiin maanta haddii uu geeriyoodu yihi imaamu albukhaari haddii uu geeriyoodo ayuu yihi, waxaa waaye cilmigii barkiisa ayaa dhamaanayo, ayaa ba-ayo, ayaa macnaha tegaya ayuu yihi, cilmigii ayaa la weynaya. marka waatan culimmadu ay yihaahdaan, gaar ahaan saxaabiga jaliilka ah cabdullahi bni mascuud wuxuu yihi mowtu lcaalimi hulmatun fi lislaami laa yasuduha shayun ma ikhtalafa alleylu wannahaaru. qof caalima haddii uu geeriyoodo, ma arkeysa, nin caalima haddii uu geeriyoodo uu dhinto, islaamkii ayaa waxaa soo gaaray yihi dhaawac baa soo gaaray yihi, dhaawac ayaa soo gaaray ayuu yihi. dhaawacaasna ma arkeysaa ma buuxin karo booskiisa sheekhaasi uu ka geeriyooday inta habeeni maalin ay socdaan, inta habeeni maalin ay jiraan. ma arkeysaa qof meeshaas buuxin karta ma jirto, ma arkeysaa. marka culimmadu ayagu ayaa isjeclaa, ma isxasdi jirin zaman salaf saalix. haddii laakiin la arko culimo isxasdaysa, haddii la arko waxaa la ogaan jiray inay yihiin culamaa dunya, inay yihiin dad adduunye ka shaqeynaya inay yihiin, oo ahlu dunya, oo adduunya un maaragtay maantay kursigooda iyo ma arkeysa iyo jaahooda ma arkeysa xagga adduunya oo sharaf ahaan u ilaashanaya ay ahaan, ayaa loo arki jiray inay yihiin. ibnu cumar saxaabiga la yiraahdo cabdullahi ibnu cumar, ma arkeysa, ayaa wuxuu yimid magaalada maka ayuu soo galay.
markaas ayaa waxaa la weydiiyey su-aal diiniya ayaa la weydiiyey. markaasu wuxuu yiri oo aniga miyaa waxay weydiinaysa inuu yidhi iyadoo uu joogo ibnu abi rabax, cataa ibnu abi rabax asigoo joogo miya aniga waxay weydiinayeen ayuu yidhi, aniga miyaa waxay weydiinayseen, aniga miyaa waxay weydiinayseen iyadoo marka waa nin saxaabi ah oo maantay sharaf iyo qiimo iyo qadarin u haya, ma arkaysaa, cataa ibnu abi rabax oo ah taabici ah, ma arkaysaa, taabici ah, ma arkaysaa. waa shay cajiib leh runtii markaad adiga aad eegtid oo zamankan hadda oo aysan jirin arrintaas ma jirto. waqtiga hadda aan noolnahay wax jira maaha, wax jira ma ahan arrintaasi, ma jirto. waxaa kasii daran arrintaas waxaa kasii daran imaamu shaafici ayaa waxaa la yidhi wuxuu soo booqan jiray imaamu axmed ayuu soo booqan jiray, maxaa gurigiisa inuu ugu tago soo booqdo soo ziyaarto, ma arkaysaa. markaasi waxay yidhahdeen saad maxaa u samaynaysaa, waaba ardagaadii waaye, ardagaadii miyaad soo booqanaysaa ayaa layidhi. qaaluu yazuuruka axmedu wa tazuuruhu, axmed baad soo booqanaysaa asna uu kusoo booqdaa, maxaa dhacay? markaasu wuxuu yihi faqultu markaas waxaan yidhi alfadaa'ilu maa tacadat manzilahu, wanaagoo dhanba gurigiisa ma soo dhaafo ayuu yii, wanaagoo dhanba guriga imaamu axmed maba soo dhaafaba ayuu leeyay, axmed oo ardaygiisii ah, ma arkaysa. in zaaranii ayuu yihi haddii uu soo booqdo fa bifadlihi, fadligiisa ayuu igu soo booqday, ow zurtuhu anigu haddii aan soo booqdo falifadlihi, fadligiisa iyo darajada iyo maamuuska uu igu leeyahay aan usoo booqanaya ayuu yihi. falfadlu fi lxaalayni lahu, labada marba haddii anigu aan soo booqdo iyo hadduu asigu soo booqdaba fadliga asiga ayaa iskale yiri, fadliga asiga ayaa iskale. marka hadda zamanka hadda aan joogno waxaa aada iyo aada u wanaagsan dadka ahlu cilmiga ah inay isxushmeeyaan oo culimmada la ixtiraamo, gaar ahaan ardada cilmiga baranaysa inay culimmadooda iyo mashaaikhdooda inay ixtiraamaan ayaa wanaagsan, sidaas ayaa wanaagsan, sidaas ayaa wanaagsan. marka waxaa la yidhaahdaa imaamka la yidhaahdo imaamka qoray kitaab lmuwada oo imaamu malik ayaa wuxuu u yimid, ma arkaysaa, waxaa u wacay aan idhaahdee haarun rashiid ayaa u wacay. marka haarun rashiid aada buu u maamuusi jiray imaamu malik, waa kii yiri, ma arkaysaa, waxaan doonayaa u yiri inaan dadka aan macnaha ku xakumo kitaabkaada, ama maaragtay aan uga dhigo wax ay fataawi ahaan ugu laabtaan kitaabkaada muwada, ma arkaysaa. marka kitaab aada iyo aada cajiib la waaye kitaabka la yihahdo almuwada liimaami malik. marka haarun rashiid wuxuu u wacay imaamu malik, ayuu gurigiisa uga wacay. markuu wacay wuxuu yihi ii imaad, imaamu malik uu u tegey. markuu u tegey kadib wuxuu haarun rashiid uu damacsanaa inuu caruurtiisa wax ugu baro guriga, oo ninkaa caalimka ah guriga uu yimaado haarun rashiid si uu wax u baro caruurta haarun rashiid. marka imaamu malik waa u yimid, haarun rashiid waa u yimid. markuu u yimid kadib wuu salaamay, wuxuu yihi acaza allahu amiira almu'miniina, ilaahay cizi iyo sharaf ha siiyo yihi amiir almu'miniin. kama uusan diidin, waa u yimid. markuu u yimid wuu dareemay waxa uu ka doonayo. markuu u cadeeyey uu yihi waxaan doonayaa inaad caruurtayda ii bartid kitaabka aada qortay oo la yihahdo muwada, inaad ii bartid ayaan doonayaa uu yihi. imaamu malik jawaab cajiib le ayuu bixiyey, wuxuu yihi ina hada alcilma minkum kharaj, ayuu yihi cilmigaani aqoonta aniga ilaahay isiiyey adinka idinka timid wuu ku ixtiraamaya. liannahu waxaa la yihahdaa haarun rashiid wuxuu ku abtirsanayaa layidhi duriyadii cabaas ibn cabdilmualib ayuu ku abtirsanayay, oo aalu beytka ayuu kamid yahay, aalu beyt nubuwa ayuu kamid yahay. imaamu malik marka asigoo ixtiraamaya oo xushmeynaya oo ka edab qaadanaya ayuu wuxuu ku yidhi fain cazaztumuuhu acaza wain dallaltumuuhu dalla, ayuu yihi cilmiga kani haddii adinku aada sharaf iyo cizi aada u yeeshaan wuu cizi ayuu helayaa ayuu yihi, haddii aada dullaysaanna wuu dulloobayaa cilmigii aqoonti. markaasu wuxuu yihi alcilmu yu'taa walaa ya'ti, waa kelmad shaac ah oo culimmadu ay macnaha ay isu wariyaan oo isu sheegaan. alcilmu yu'taa walaa ya'ti, cilmigu waa loo yimaadaahi ma tago, cilmiga
ma arkaysaa waa loo xereystaaye ma arkaysaa oo waa la aadaa meesha uu joogo iyo meesha uu yaallo ayaa laga doontaaye cilmi ma yimaado. marka jawaabta uu dhiibay waxaa la yihahdaa jawaab aada iyo aada u xikmad badan ayay ahayd. alcilmu yu'taa walaa ya'ti, ma arkaysaa ma dhihin may waan kaa diiday, midna ma dhihin. marka haaruun rashiid wuu ogaaday waxa uu la dan leeyahay, ereygaas wuu ogaaday. markaas caruurtiisa wuxuu yihi masaajidka taga, masjidu rasuulillaahi oo madiina ku yaala taga, ma arkaysaa markaad tagtaan kadibna halkaas wax ka barta oo sheekha kamid noqda, xertiisa iyo dadka wax ka baranaya kamid noqda. inta adinku guriga laydinku imaan lahaa taga xaggaas oo xagga taga oo xaggaa wax ka barta ayuu yiri. marka aada iyo aad bay u wanaagsan tahay in culimmada la ixtiraamo, waana waajib ya waqtigan hadda aan joogno aada iyo aad ayay waajib u tahay in culimmada la ixtiraamo. waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga insha allahu tacaala in maaragtay qiso aada iyo aada u wanaagsan oo dhex martay xasan albisri iyo ma arkaysaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninka la yihahdo. xasan albisri waa sheekh caalim ah oo taabiciinta kamid ah ayuu ahaa. xajaaj ibnu yuusufna waad garanaysiinoo wuxuu ahaa ma arkaysaa nin kamid ah dadkii xakumayay ama gaar ahaan dhulka la yihahdo ciraaq dadkii xakumayay kamid ahaa. asiga boqor ma uusan ahayn ama khaliifatulmuslimiin markaas ma uusan ahayn, laakiin waxaa la yihahdaa nin aada iyo aada u shar badan ayuu ahaa, u dhib badan oo ma arkaysaa waa kii dilay asxaabta qaar kamida dilay, ma arkaysaa xajaaj ibnu yuusuf haddii uu yahay. laakiin xasan albisri oo aada iyo aada u xikmad badnaa ilaahay wuu ka fakiyey, ma arkaysaa. marka qiso waxaa jirta dhex martay, ma arkaysaa ugu dambaystina xajaaj ay noqotay inuu ka heebeysto xasan albisri. marka waxaa la yihahdaa qofkii ilaahay ka heebeysta oo qofkii ilaahay ka baqa, bini aadamkuna wuu ka baqaa, ma arkaysaa xataa ahaado qof aada iyo aada u shar badan, xataa ahaado sida xajaaj oo kaleeto ahaado. marka qisada waxay sheegaysaa, ma arkaysaa xajaaj ninka la yihahdo wuxuu guri ka dhistay ama madaxtooye ama qalcad uu ka dhistay markii uu qabsaday ama weli looga dhigay ama madax looga dhigay meesha la yihahdo ciraaq, wadanka la yihahdo ciraaq dhammaantiis ayuu madax ka ahaa. marka ninkaasi wuxuu dhisay guri madaxtooye ayuu dhistay. gurigii markuu dhisay kadib guri aada iyo aad u qurux badan ayuu ahaa, cajiib leh ayuu ahaa. magaalada uu ka dhisana waxay ahayd ma arkaysaa wasit iyo basra meesha udhexaysa, magaalo la yihahdo wasit iyo basra meel la yihahdo meel udhexaysa ayuu guri qalcad weyn ka taagtay, meel buur ayuu ka taagay oo aada iyo aada u qurux badan. marka dadweynihii ayuu wuxuu u fasaxay maalin maalmaha kamid a inay soo booqdaan gurigaas oo soo booqdaan oo ay arkaan qaabka loo dhisay iyo inta uu ka kooban yahay iyo sidaas oo kaleeto ay kusoo warwareegaan. markii uu tegey dadkii weynihii markay meeshii tageen gurigii weynaa iyo qalcaddii iyo ayay aada ula cajiibeen, ma arkaysaa. marka dadkii tegay waxaa kamid ahaa xasan albisri, si uu asigana usoo arko halkaas. xasan albisri ayaa kamid ahaa. markaas ayuu wuxuu damcay inuu ka faaideysto meeshaas, uu ka faaideysto wuxuu sheego ninka la yihahdo xajaaj bin yuusuf, dadkana wuxuu sheego, ma arkaysaa. wuxuu yihi ina fircawna shayada acdama min hada, guriga aada dhistay guri ka weyn hadda kahor waxaa dhistay u yihi fircawn. waa kii yiri qur-aanka waad arkaysaa, waqaala fircawnu yaa haman bni lii sarxan lacalii ablugu lasbaaba, ma arkaysaa asbaab asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa. marka wuxuu leeyahay boqortinimada iyo madaxtinimada aada haysatid xajaajow waxaa horey usoo maray ayuu yihi fircawn ayaa hore usoo maray, ma arkaysaa. laakiin ilaahay wuu halaagay fircawn, ilaahay wuu halaagay. xajaajow maad ogaatid uu yihi ana ahla asamaai qad maqatuuka, inay kuu caroodeen. ana ahla asamaai marka dadkii ula hadlaa wuxuu yihi layta yaclamu lxujaaju, yaclamu lxajaaju dheh, yaclamu lxajaaju, xajaaj maa ogaado ana ahla asamaai qad maqatuuhu, dadka ahlu samaa malaaigta ahlu samaa inay u caroodeen ma ogaado. wa ana ahla alardi qad qarowhu, dadka ahlu ardigana ay ku kadsoomeen. marka hadalkaas uu yihi xajaajkina wuu maqlayaa, maogtahay, ma arkaysaa. markaas dadki waxay yidhahdeen waryow ku dilin,
yaan lagu dilin, maad iska aamustid ay yidhaahdeen. marka xasan albasri wuxuu yihi laqad akhada allahu lmithaaqa calaa ahli lcilmi layubayinunahu linnaasi walaa yaktumuunahu. ilaahay dadka ahlucilmiga ballan adag ayuu ka qaaday inay dadka u caddeeyaan waxna aysan ka qarin. marka maalintii koowaad ayuu saas yiri. marka wuxuu dareensiiyey inuu xajaaj uu yahay nin kibray, isla markaasna dhaalim ah oo ummadda dulmiyey, sidaana aysan fiicnin. marka waxba hala yaabin ayuu yiri, gurigan wuxuu ku dhisay dulmi iyo balaayo ayuu ku dhisay, ma arkaysaa, iyo hantidii dadweynaha ayuu ku dhisay. marka wuxuu doonayaa inuu dadka wax tusiyo, kana uu wacdiyo. laakiin intaas kuma adkaysan ama kuma joogsan ninka la yihahdo xajaaj ibnu yuusuf. maalintii labaad ayuu markuu gurigii uu fariistay oo madaxtooyadii uu fariistay xajaaj ibnu yuusuf, ayuu wuxuu yihi hala ii waca ayuu yiri ninka la yidhaahdo xasan albasri, hala ii waca ayuu yiri. marka wuu soo galay, wuu yimid, xasan albasri wuu u yimid. markuu yimid wuxuu u wacday xajaaj ibnu yuusuf, wuxuu wacday dadkii asiga la joogay oo madaxda uu u ahaa, kuwii shaqaalihiisa ayuu wuxuu yiri iigu waca yiri dadka dili jiray iigu yeer ayuu yiri. marka halkan waxaa lasoo joojiyey nin seef haysta iyo nin waran haysta iyo isla markaasna waxaa la wacay xasan albasri si uu halkaa usoo galo. xasan albasri markuu soo galay xoogaa duca yar ayuu hoosta ka aqarsaday, asigoo aada iyo aada u muujinaya, ma arkaysaa, inuu yahay qof ilaahay ka baqayo, xajaaj aan ka baqaynin. xajaaj markuu arkay ninkii la yidhaahdo xasan albasri wuu ka heebeystay, wuu naxay, naxtin baa qabatay. markuu arkay xasan albasri uu soo gelayay, markuu arkay ayuu wuxuu yihi soo dhawaaw, marxaban, hadal aan laga filayna ayuu yihi. de meeshana waxaa ku diyaarsan, ma arkaysaa, ninkii seefka haystay. marka waxaaba laga yaabay in qoorta uu laga jari lahaa, ayaaba laga yaabay, ma arkaysaa. xasan albasri marka uu ag fariisiyey, marka wuxuu halkaan soo fariisay ayuu yihi, wuuba ixtiraamaba, marka sidii laga filayay si aan ahayn ayuu usoo dhaweeyey. markaasuu su-aal weydiiyey, su-aalo fara badan oo diiniya ayuu weydiiyey. xasan albasrina su-aalihii uu weydiiyey ayuu uga jawaabay. markii dambe xasan albasri asigoo ixtiraamaya ayuu wuxuu yiri, ma arkaysaa, anta sayid lculamaa ayuu yiri, culamada maanta madaxdeeda adiga ayaa ahuu yiri. shalana wuxuu lahaa, ma arkaysaa, dadkii la jooga wuxuu yiri cabdun min cabiidi lbasra ayaa idin imaanaya oo isla markaas waxa lagu raba sheegaya oo qof la hadlaysa aysan jirin. wallahi waa kii ku dhaartay, wuxuu yiri la asqiyanakum yaa macshar aljubanaa ayuu shalay yiri. shalay wuxuu yiri wallahi fulayiin baa tihiin yiri, ninkaasoo kale haddii aan arki lahaa hadda kadib, ma arkaysaa, asigoo kale haddaan arko qoortaan ka jari lahaa ayuu yiri, qoorta ayaan ka jari lahaa ayuu yiri. laakiin maalintii labaad sidaas ma noqon, wuu ka hiibeystay, isla markaasna wuu soo dhaweeyey. markuu soo dhaweeyey kadibna waxaa la yidhahdaa si wanaagsan ayuu u sagootiyey, ma arkaysaa. ilaahi baa qulubta maamula, ma ogtahay. marka nin buu kusii daray oo dadkii macnaha waardiyaashiisa kamid ahaa oo ilaalinayay xajaaj, dadkii ilaaladiisii nin kamid a ayuu yiri sii sagooti xasan sheekha sii sagooti ayuu yiri, asigoo la karaameeyey oo la maamusay. markaas ninkii wuxuu yiri war sheekhow maxaad tiriyo, maxaad aqarsatay uu yiri, waaba lagula yaabay, wixii xajaaj ibnu yuusuf uu kugu yeera mooye wax kale ayuu kugu sameeyey. maanta waxay ahayd in adiga qudha lagaa jaro oo lagu dilo ayay ahayd ayuu yiri. markaasuu xasan albasri wuxuu yiri markii aan soo gelayay ayaan duca aqarsaday yiri. marka wuxuu yiri ducadii maxay ahayd yiri, ii sheeg ayuu yiri. waxaan yiri yaa waliya nicmatii, yaa waliya, ilaahay baan baryo yiri, yaa waliya nicmatii wa malaadii cinda kurbatii ijcal naqmatahu bardan wa salaaman calaya kama jacalta annaara bardan wa salaaman calaa ibraahim ayaan iri yiri. ilaahay baan baryo yiri, yaa waliya nicmatii, allihii ma arkaysaa nicmadeeda weliga u ahayo, wamalaadii cinda kurbatii, cidda aan u ciirsanayo markii dhibaata igu dhacday, ya cidda aan u ciirsanayo yaa ilaahay ayaan iriyo yiri. ijcal niqmatahu bardan wa salaaman calaya, ilaahu ninkan caradiisa ilaahu iiga dhig midkaas mid qabow iyo mid nabadgelye ah, ilaahu iiga dhig ayaan yiri. sidii nebi ibraahimba aada naartii uga dhigtay ama dabkii lagu riday sida aada uga dhigtay, ma arkaysaa, qabow iyo maaragtay mid nabadgelisa sida aad uga dhigtay. marka sidaasay ku dhamaatay qisada sidaasay ku dhamaatay. marka haddii culammadu ilaahay ay ka baqaan
oo diintooda ilaahay diinta ilaahay ay xambaarsan yihiin oo qur-aanka iyo diinta ayagu ay wadaan, haddii ay ilaahay uga baqaan ma arkaysa, oo ayagu aysan isku xasdin, oo aysan noqon culamaa akhir zamaan oo kaleeto aysan noqon ma arkaysa, dadweynuhu way ka heebeysanayaan waana la ixtiraamaya. marka wacalaa ayi xaal insha allahu tacaala waxaan jeclahay in aan darsiga ku xigo aan ka dhigo haddii ala yiraahdo culamaa akhir zamaan maxaa lagu garanaya, iyo alxasadu bayna alculamaa, culamada dhexdooda xasad ma dhex mari karaa ma arkaysa. labadaas darsi ayaa ii dhiman. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.